بس اسكو برتين horta marka waxaa isku baranay wallahi iskuul asla dhigi jirnay صح muddo badan isla soo jirnay tasanooyin badan si fiican balse wiilkii ma shaqeey jirin mar walba waxa aan u baahanahay ma ka heli jirin waxa aniga micnaha qof dumar maadaama qof dumar ay asla u go'anahay si fiican wax badan u baahanahay soma si fiican haba kama heli jirin marka marna wallahi mar badan oo soo wici jiray hataa mar telefoonka waa ka qaban jiray marna waa ku dhageysan jirnay marna hataa familkay walaalay u dhiibi jiray ciyaari jirtay maba joogtaa dhigi jiray marka xanaani maxaa saas u sameynayna sanadkaas wallahi waxa ugu sameeyay wiilkaas day faqiir oo ah waxba ma lahayn marka kala harnay oo iga haray adi aagoysay aniga waa go'aasana oo igu qofsaday marka صح wiilkii waxa arkay asigoo u kala kacday oo gaari ku socdo mar walba islaamkiisa daawada statistiski asigan statistiska kay WhatsApp-ka blog iga masaarin wax walba ka daawlax ilma soo hadli jirin صح kadib waxa arkay islaamkii waxyaalo badan la soo dhigaayo maqaayo meesha ugu fiican dalxiiska meesha ugu fiican oo aadayo baasbooriisi balaayiska daba dhicisa kadib ina raadiya isku day oo iyo telefoonta ka wacay oo ii qawaaye telefoon walba ka wacay marka aniga codkayga aan wax aan maqlo oo igu dimi jiray صح kadib waxa dhacday reer habeenkii hooy abeena u sheegay waxa doona aa dhaho inuu asa arkay bas aragtidiis aa soo arka meena meeshu fadhiisanayo waxaan arkaa markaa meesha soo galo miiska asiga fadhiyo miiska gadaal inaan fadhiisto wax iska dalbado oo laakiin uu ku fahmin waa ifahma laakiin ilama hadlaayo waa dareensan yahay laakiin ilama hadlaayo كنتو عن صاحب يال سو دوادا halkani waa bogeyga Facebook ee Aweys Maxamuud Jilco maanta waxa martino ah Xanaan Cali Xasan oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Xanaan soo dhawo kaaga mahad celinayna waqtiga qiimaha badan maanta maxaa noola soo xiriirtay oo noogu imaatay ma sha Allah waa maasantay walaalkayga qaaliga waxa idinku imaaday beedkaada waxaan ku arkay waxyaalo badan oo ummadda Soomaali loo gudbi karo kaasaan ku imaaday maanta qiso ayaan wadaatay kale oo Soomaalida la gudbo inaa la wadaaga Arab gabdhaha Soomaali si fiican Xanaan soo dhawo xarjeenaya in message-kaaga dadka ugu talagashay inuu gaari doono badan waxaan ka hadalnaa barnaamijyada ku saabsan kuwa ku soo dhacay dumarkeena Soomaaliyeed ee adkeysiga badan waxyaabaha ay go'aanayaan muddo badan ee la noolaayeen waxyaabihii ay awoodi waayeen in ay saaxiibadood ama ehelkooda ila wadaagaan ama ay waayeen qof dhageysta inta badan sidoo kale dad badan ayaa halkan ka baahinaa oo dadka Soomaaliyeed wacyi geliya isla markaana dhiirigeliya maxaa jeclaan lahayd marka inaad dadka la wadaagtid wallahi horta aniga caan ma ihi faantay dadka waxaan ku arkay social media waxyaalo badan qisooyin dad badan ka sheekeynaayo waxyaalahaas aan arkina waxaa siday kulay maanta qisada kugu dhacday bal meeshaas inaad tagtid ka sheekay dadka la wadaagtid dadka Soomaalida la wadaagtid marka jacayl miya maxay ku saabsan tahay wallahi qisadeedu wax kale ma ahan waa qiso cad oo xanuun badan kulay dad badan waa laga yaabaa inay ku dhacday صح dadna waa laga yaabaa inay ku dhicin aniga qiso waxay igu dhacday wiil as jeclaa jirnay adiga muddo waxa isla soconay 4 sano meelahaas camal balse asa jeclaa jiray aniga ma jeclaa jirin wiil iska ahay adiga iska faqiir ah oo iska ahay inta la guda galin sheekada see ku bilaabatay maxaafadeed deganeed magaalada ka deganeed see ku bilaabatay xaafadda waxaan ka deganahay aniga xaafad degmada waa bariya deganahay asigana wuxuu degan yahay Madiino meelahaas oo degan yahay صح marka qisadii warka aan ku waday waxay ku dhacday wiilkiisa u sheekaysi jirnay adiga see isku barateen horta marka waxa isku baranay wallahi iskuul asla dhigi jirnay صح muddo badan isla soo jirnay tasanooyin badan si fiican balse wiilkii ma shaqeey jirin mar walba waxa aan u baahanahay ma ka heli jirin waxa aniga micnaha qof dumar maadaama qof dumar ay asla u go'anahay wax badan u baahanahay soma si fiican haba kama heli jirin marka marna wallahi mar badan oo soo wici jiray hataa mar telefoonka waa ka qaban jiray marna waa ku dhageysan jirnay marna hataa familkay walaalay u dhiibi jiray ciyaari jirtay maba joogtaa dhigi jiray marka xanaani maxaa saas u sameynayna sanadkaas wallahi waxa ugu sameeyay wiilkaas day faqiir oo ah waxba ma lahayn way marka haddii aadan waxba haysanin macno badan ma leeyahay waa marka taad beenis saas waa sababteeda wallahi saas waay ani kulay intaas ku nacay dabeecadiisu fiican tahay waa dadka waa soo xariiri jiray hataa mid ila walaashayda mid iga weynaa lambarkeed
aan siiye Sax. aan dhihi jiray soo jeceelo ii qaba mara lambarkaan la imaanay lambarka walaashaada isiiyo yidha sida iskaga fujiyey mid ilaa la lambarkeeda siiye iidaa waxaan ka gaaray raan baloog aan ka saaro meeloo igu soo raadi waaye anan qofka haddii uu ku daryeelo uu jeceyl ku siiyo uu dabeecad fiican yahay laakiin uusan lacag lahayn sidaa daradeed wax macnaha ma laha wiilkii kadib waxaa ku arkay horta asigoo wiilkii oo wax iska yeeshtay oo shaqo fiican helay oo waa sanado kadib haa sanado afar sano kadib waa haa kadib markaa kala harteen markaa kala harnay wuu iga weliba haray adi aa goysay asi aniga waa go-aasana wuu igu qoobsaday marka sax wiilkii waxaa arkay asigoo u kala kacday oo gaari ku socdo mar walba islaamkiisa daawada staatiskii asigan staatiska kay whatsappka blog igama saarin sax wax walba ka daawlax ilma soo hadli jirin sax kadib waxaa arkay islaamkii waxyaalo badan la soo dhigaayo maqaayo meesha ugu fiican dalxiiska meesha ugu fiican oo aadayo baasboorihiisa iyo balaa iska daba dhicaysa Nairobi uu Nairobi tagaayo meel kasta oo aadayo sax kadib inaa raadiya isku day hey oo ii telefoonta ka wacay oo ii qawi waaye telefoon walbaa ka wacay marka aniga codkayga aan wax aan maqalo oo igu dami jiray sax kadib waxaa ku arkay meelaha Maka al-Mukarramo soo baawurka jira asoo baawur wata badnaa markoo meesha fadhiisanayna Maka al-Mukarramo waa sax kadib waxaa dhacday reera habeenkii hooy abeena u sheegay waxaa doonaa aa dhaho hey inuu asa arka leebis aragtidiis aa soo arka micnaha meeshuu fadhiisan jiray meeshuu fadhiisanaayo waxaan arkaa markaa meesha soo galo miiska asiga fadhiyo miiska gadaal inaan fadhiisto wax iska dalbado oo laakiin uusan ku fahmin woo ifahmaa laakiin Sax. ilama hadlaayo hey woo i dareensan yahay laakiin ilama hadlaayo kadib waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed marna nolosha wax walba dhacda dadna lacag way yeeshtaa markay faqiiriin lacagta waa wax la iska helaayo waa hey marka waxaan la tali lahaaye jaceylkan waa wax jiro hey faqiirnimada qofka yaa laga ordin micnaha ka hor marka xanaanay fursadda ku dhaaftay ninkan hadda ugu sabri lahayd wax la'aanta maanta soo ku kala kici lahayd wallaahi way ii kalkacleed wallaahi shilaaga aan ka shilaalahay ma qiyaasi karo waay xanuunka ay u qabatay qasidaas xanuun yar maaha waay hadda ma guursaday intuu ku dambeeyaa hadda wuu guursaday sax 3 cunug miyaa loo hayaa hataa wuu guursaday hey adduunka u kalkacsantay hey faqiirnimadii anaa kusoo haraad waay fariinta aad gabdhaha Soomaaliyeed diraysid maxaa waay fariinta gabdhaha u diray waxaa waaye gabdhaheen Soomaaliyeed faqiirnimada yaa la isku nicin lacag waa wax la helaayo haddii la sabro wax walba waa nolosha waa iska helaysiin waa iska helaysiin marka hal isku sabro ani kulle intaas ay ku dhacday maanta waxaa u imaaday ani weligeyga ma soo istaagin kaamiro Sax. laakiin maanta waxaa u imaaday ina aniga micnaha qasideedii waxa aniga nolosheeda ku saabsan inaan sheego sax waana ku mahadsan tahay boqolkiiba waay xanaan ma maasan tahay adna waqtiga qiimaha badan oo kaga mahad celinaa walaashay waxaan ku rajeynayaa ninkaas nin ka shidan oo ka dhaqaalo badan inaa heshid insha allah ilaahay bis waa nintaa jira maraa markaan maasanid faqiirka nabadgelyo